kulankan degdega oo isugu yimaadeen maamulka gobolka Benaadir oo ka dhacay aqalka dowladda hoose xamar ayaa looga hadlay fatahaada uu sameeyay wabiga Shabeelle iyo saameynta culus oo u geystay dadka ku nool magaalada Baladweyne. kulankan degdega ayaa intuu socday waxa uu maamulka gobolka Benaadir ugu deeqay dadka Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan magaalada Baladweyne lacag gaaraysa $100 kun oo dollarka Mareykanka. sidoo kale waxa uu maamulka gobolka Benaadir u magacaabay guddi u istaaga sidii deeqa loogu aruurin lahaa bulshada caasimadda ku nool si loo xoojiyo gurmadka loo fidinayo dadka uu saameeyay fatahaada wabiga Shabeelle. gudoomiyaha gobolka Benaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Ijneeriso oo kulankani shir gudoominayay ayaa warbaahinta la hadlay. shirka kadib waxaan go'aansanay laba arrin. kow in si degdeg ah dhiig joojin aan lacag $100 kun oo dollar ah oo maamulka gobolka Benaadir iyo shaqaalahaba ugu talagalayaan oo sida degdega ah in walaalaheen la gaarsiiyo. labo in guddi aan saaranay oo shirgudoon ay ka tahay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada Basma Shiketi Amir oo guddigaasna uu bilaabi doono olole degdeg ah oo shacabka gobolka Benaadir sidii ayagana gurmadkooda ay kaalin uga qaadan lahaayeen. sidaas daraadeed qof kasta oo Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa wax alaal wuxuu awoodo in gurmad degdeg lala soo gaaro dadkaas dhibaatada ku hayso magaalada Baladweyne. ha noqoto qof walba wuxuu heli karo, ha noqoto raashin, dhar, wax alaale wixii qof walba u fudud. degmo walba gudoomiyaha degmada kusoo hagaajiya si guddiga loo gaarsiiyo. guddigana soo matalaya shacabka gobolka Benaadir wax alaale wixii kaalmo aad soo gaarana aan u gudbino gobolka Hiiraan magaaladaas Baladweyne. marka intaas ayay ahayd. ugu dambeyntii baaq waxaan u jeedinaynaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waqtiyada la isu baahan yahay waa waqtiyadan gurmadka ah. marka waxaan rajaynaynaa qof walba inuu kaalintiisa ka qaadan doono. aad iyo aad u mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. nuur saciid taaliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.